siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed dagahooda kuma cusba muddada sanadka iyo barka ah ay jirto xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre in xukuumadda ay sameeyso xilka qaadis iyo magacaabis xubnaha golaha wasiirada dalka iyadoo dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda dalka ay siyaabo kala duwan u fasirteen arintaasi. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa dhawaan xilka qaadis ku sameeyay wasiiradii waxbarashada iyo diinta iyo awqaafta ee ka tirsanaa xukuumaddiisa iyadoona maanta wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya lagu magacaabay wasiiro cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada xukuumadda Xasan Cali Kheyre. wareegtadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxa warbaahinta u akhriyay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Gelle. anta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha Agost 2018 waxaan idin soo gudbinaynaa wareegto ka soo baxday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo u qaran sida tan: magaca sharciga ujeedo magacaabid wasiiro. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobka 97aad faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa 2aad xarfaha A iyo B ee dastuurka meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 100aad xarfaha A, B iyo C ee dastuurka meel gaarka ah, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirada, wuxuu magacaabay Mudane Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare, Mudane Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen wasiirka xanaanada xoolaha, Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, Mudane Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi wasiiru dowlaha madaxtooyada, Mudane Shawaqar Ibraahim Cabdalla wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha. qodobka 2aad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilkooda. qodobka 3aad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. dekreetadan waxaa ku saxiixan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre. sidaas daraadeed magacaabistaasi waa ay dhaqan gashay. isbedelada lagu sameynayo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay shacabka Soomaaliyeed u arkaan inay tahay mid lagu degdegay iyadoo ay jiraan wasiiro shacabku ay sheegeen in ay wanaagsanaan lahayd in xilka qaadis lagu sameeyo. Mustafa Xasan Cabdi, wararka TV-ga STN, magaalada Muqdisho.